waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka dhacday doorashada kursiga sumadiisu tahay Hob 248 oo uu baneeyay taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya Saadaq Cumar Xasan oo deegaan doorashadiisu tahay deegaanada Galmudug. Kursigan ayaa waxaa ku tartamayay musharaxiinta kala ah Maxamed Cabdi Xasan iyo Saara Xasan Cabdulle. Ugu horeyn gudoomiyaha guddiga oo xil saaran kuraasta ka bannaan baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadooduna tahay deegaanada Galmudug Cabdullaahi Salaad Yarow ayaa ka warbixiyay habraacyada loo marayo doorashada kursigan Hob 248. maanta sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galno waa marqaati ka noqono in halkan ay ka dhacdo doorasho kursi banaanaaday oo baarlamaanka 11aad oo halkan dib ay ugu buuxinayaan beesha kursiga iska leh kursigaas oo ah kursiga 248. halkan waxaan ku haynaa liiska 95 xubnood. sharciga doorashada wuxuu qabaa ergada guud ee kursiga dooran kartaa inay tahay 101. haddii ay soo xaadiraan saddex marka loo dhigo laba meelood ergada kursigaasi wuxuu geli karaa doorasho. haddana waxaanu haynaa 95 xubnood. taa macnaheedu waxa weeye sharcigu wuxuu ogol yahay in kursigaasi doorasho geli karo. sidaa awgeed waxaan halkan ka tilmaamaynaa in la bilaabi karo doorashadii. musharaxiinta ku tartamayay kursigan ayaa ergada ka dalbaday in ay codkooda siiyaan. anigoo ah Saara Xasan Cabdulle waxaan in ka codsanayaa kursiga ee lambarkiisu yahay 248 oo macnaha beesha iska leh. waxaan ka codsanayaa kursigaas inay siidaan sida macnaha aad ii siidaan ay kugu shaqeyn doonaa. anigoo ah gabar waxaan rabaa marka in la ii heliyo. maantay halkaan waxaan u soo istaagay inaan cod ka helo taageerayaashayda ee reer Galmudug gaar ahaan dadka iska leh kursigan lambarkiisu yahay 248. waxaan rajaynayaa si buuxda inaan u heli doono codkiina anigoo jecel inaan idinkugu shaqeeyo idinkuna matalo. intaasi kadib ayaa waxaa la guda galay codaynta kursiga waxaana 80 cod ku guuleystay Maxamed Cabdi Xasan halka Saara Xasan Cabdulle ay heshay 10 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga oo xil saaran buuxinta kuraasta ka bannaan golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Galmudug. waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo natiijadii doorashadii maanta kursiga 248 ka soo baxday. waxaa ku tartamay kursiga laba musharax Maxamed Cabdi Xasan iyo Saara Xasan Cabdulle. waxay kala heleen codadka soo socda. Maxamed Cabdi Xasan wuxuu helay 80 cod. Saara Xasan Cabdulle waxay heshay 10 cod. waxaa naga halaabay oo aan si sax ah loo sixin meeshii loogu talagalay 2 cod. waxaan la isticmaalin 9 cod. tirada guud ee ergada waxay ahayd kursigan 101 xubnood. sidaas awgeed waxaa kursigan 248 muddada u harsan ku guuleystay mudane Maxamed Cabdi Xasan. xildhibaan Maxamed Cabdi Xasan oo ku soo baxay doorashada kursigan ayaa ergada uga mahad celiyay wuxuuna sheegay in uu ugu shaqeyn doono si cadaalad ah. waxaan kaloo mahad celinayaa codbixiyaalka dhammaan isii codkooda aad iyo aad u mahadsantihiin. waa idin mahad celinayaa. waxaan ku faraxsanahay sida la iigu codbixiyay xornimo codbixin xornimo ah oo aan joogjoog ahayn maaragtaa geedi isku aadin si cad maanta codka la ii siiyey ayaan aad ugu faraxsanahay. waxaan kaloo rajaynayaa insha Allah inay doorashooyinka dambana sidaas u dhici doonaan ama ha aadeen kuwa Galmudug ama ha aadeen kuwa qaranka si cad qof waliba inuu meel muuqato uga qaadan doono mas'uuliyadiisa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa qarankana inaan wax badan ku tari doono gobolka Galmudugna sidoo kale aan wax u qaban doono haddii alla yiraahdo.